أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الكسور دبادة channel كأقوان official حدي الجنال كعصب تاعي سبسكرايب صار موقع كان لايكري صاحب هذا كارسي مع سندين waxaan ku jirnaa xalintii imtixaankii dowladda 2024 maadada fiisigiska gaar ahaan maamulka Khartoum waxaan galeynaa su'aasheenii ama afraad chapterka 4 ayuu ka imaan doonaa reflection of light waana calculation waxaana u dhacaysaa an object 5 cm high is placed a distance 10 cm from wuxuu ka imaan doonaa convex mirror radius kana waa 30 cm find so hel the position of image oo ah di nature of image nooca sawirka d size of image iyo cabirka sawirka haddii aan fiirino given waxaanoo ah h oo ah high of object iyo waxaa haysanaa do distance object waxaa haysanaa radius haysanaa oo 30 cm ah soo marka di maxaan ku helaynaa dhowr qaacida ayay leedahay midaa doontaa mari kartaa qaacidada isticmaalayna waa sida tan oo ah minus f oo lagu dhuftay do distance object oo loo qeybiyay do oo lagu daray f ayaa isticmaalaynaa maadaama hadda f ay naga maqan tahay f-na waxaan ku helaynaa r oo loo qeybiyay 2 r oo radius-ka ah maadaama radius-ka ah haysano 30 waxaan u qeybinaynaa 2 waxay la mid tahay 15 cm maadaama focal length-geena miraayad ay tahay convex waxaan siinaynaa minus ayaan siinaynaa oo ah minus 15 ayay noo noqonaysaa qaacidada haddii aan ku dabaqno marka minus oo f ah 15 lagu dhuftay do oo 10 cm ah loo qeybiyay do oo 10 ah waxaan ku daraynaa 15 oo focal length-ga ah intaa markaa kor isku dhufano qaybta hoose isku darno kadibna isu qaybin waxaa kasoo bixi doona minus 6 cm ayaa kasoo bixi doona oo di ah qaacido kalena waa isticmaali kartaa oo waxaa dhigi kartaa di waxay la mid tahay minus r lagu dhuftay d oo loo qeybiyay 2 oo lagu dhuftay do oo lagu daray r qaacidadaasna waa kusoo saari kartaa waa ku xalin kartaa isku day haddii aan fiirino nature of image-ka wuxuu yahay marka waa virtual waaye an erect waaye oonu taagan yahay image-ka su-aasha ku xigta size of image haddii aan ka jawaabno waxay noqonaysaa size of image waxaan ku helaynaa hi oo ah height of image wuxuu la mid yahay di oo lagu dhuftay ho oo loo qeybiyay do di meeqaa soo saarnay waa 6 sababta minuska uu tagayna waxay tahay distance-ga minus ma qaato 6 lagu dhuftay ho oo 5 ah loo qeybiyay do oo 10 ah marka isku dhufana labada kore aan 10 u qeybin waxaa kasoo bixi doona 3 cm ayaa kasoo bixi doonto sidaas ayaan ugu jawaabnay su-aasha ku xigta haddii aan fiirino state Snell's law sheeg waxay noqonaysaa marka jawaabteeda su-aal toos ah the ratio waa isu qaybinta of sin of the angle of incidence xagal soo dhicista sida waxaa loo qaybinayaa sin of refraction xagal qaloocanka waxaana kasoo bixi doona waxa la yiraahdo constant ama waxaa dhigi kartaa sin I oo loo qeybiyay sin r waxay la mid tahay constant haddii aan fiirino su-aasha ku xigta ee labaad an eye specialist describes dhakhtar qaabilsan indhaha ayaa wuxuu qoray bikaaco dhan focal length-geeda 25 cm wuxuuna u qoray qof si uu qaato ookiyaalo what is the power of lens waa maxay awoodda bikaaco powerka marka waxaan ku helaynaa 100 oo loo qeybiyay focal length-ga 100kan waxaa maadaama centimeter uu yahay loo bedeli lahaa meter 100 ayaa u qaybinaynaa marka waxaan leenahay 100 loo qeybiyay f oo ah focalka 100 loo qeybiyay focal length-geena meeqo ahaa 25 u qeybi waxay kasoo bixi doonto 4 oo halbeegan waxaa raacsiinaynaa d ama waxaa isticmaali kartaa qaacidada ah powerka waxay la mid tahay ama lagu helaa hal loo qeybiyay focal length-ga hal oo loo qeybiyay focal length-ga maadaama uu yahay 25 cm waxaa u bedelaynaa meter si aad meter ugu bedeshina waxaa u baahan tahay inaad 100 u qeybiso markaas waxay noqonaysaa 0.25 hal u qeybi 0.25 waxaa kasoo bixi doonta 4 ayaa kasoo bixi doonta haddii aan fiirino su-aasha ku xigta if you look haddii aad fiiriso the sky cirka in a day maalintii markay daruuran jirin ama daruur aysan jirin you will see marka cirka waxaa ka arkaysaa inuu yahay blue ama blue inuu yahay color ahaan sababtaas maxay tahay haddii aan ka jawaabno waxaan u jawaabaynaa laba qodob qodobka koowaad the sky appears blue cirka wuxuu muuqdaa blue in colors midab ahaan because of scattering sababtana waxay tahay
isbarbaryaaca ama isdhexyaaca blue light iftiinka bluega ah. su-aasha qaybta labaad haddaan aan fiirino answer kale, the sky is blue, cirka wuxuu blue u yahay sababtoo ah when light coming from, marka iftiinka uu ka imaado sun, qoraxda, reaches waxay gaaraysaa the atmosphere, jawiga ayay gaaraysaa. the particles of the atmosphere scatter, waxayna dhexyaaci doontaa violet, indigo and blue only, iyo midabka bluega ah. then you will see, kadibna waxaa arkaysaa the sky as blue, cirka inuu yahay blue inuu yahay ayaad arkaysaa. numberka labaad haddii aan fiirino, look waxaa fiirisaa at the diagram below, sawirkan hoose fiiri, of white light iftiinka cad, as it passes markuu marayo through prismka markuu gudbayo, right magacaawo the names magacyada of 7 colors, 7 midabood ee ka imaanaya violetka iyo redka. waxaa ugu horeeya marka violetka waa lagu qoray, waxaa ku xiga indigo, waxaa ku xiga blue, waxaa ku xiga green, waxaa ku xiga yellow, orange waa lagu qoray, redna waa lagu qoray. baartigeena xiga inta ayaa kusoo gabagabaynaynaa. la socda qaybaha xiga. mahadsanidin.